waxaan maanta u dabaaldegaynaa sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka cirka Soomaaliyeed. ise waxaan u haynaa Turkiga nala cashiiroobay waa cudud walaal oo casri ah ciilna uma quuro cadowgeenu waa mid rabbow ciidda ka hoos mari cusub iyo dhul doogliya cabaad iyo nabad lagu caweeyaa wanaag lagu ciyaariyo farxad ciidan wada baanaho calanka aan caasin oo cadowga ka jira misnaca ama dhagaweynta iga guddooma salaan ay idin soo gudbinayaan dhammaan ciidanka dhulka Soomaaliyeed meelu joogaba taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya sareeya guud Maxamed Tahliil Biixi Shariif Arwaax ayaa hambaliyad dabadeed ahmiyadda uu ciidankan u leeyahay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida sharaxaya. waxaan oran karaa ciidanka cirku haddii la tiriyo meeqaamkiisa uu ku fadhiyo ciidamada ugu fadhiyo iyo mas'uuliyadda uu ummadda Soomaaliyeed u hayo inaan halkan laga sheegi karin. ciidan marka la qiimeynayo awalan qiimeynta koowaad waa cirka, qiimeynta labaadna waa cirka, qiimeynta saddexaadna waa cirka. in laga difaaco ciidamada dhulka jooga iyo kuwa badda joogaba in cirka laga difaaca lambar 1 ah. qiimeyntaasuu noogu fadhiyaa ciidanka cirku. ciidanka cirka Soomaaliyeed wuxuu ahaa sida ciidamada kaleba oo noocyadoodii ciidanka dhulka ama infantry waxaad tirahdaan badda difaaca cirka wuxuu u ahaa mithaal buu u ahaa waa ciidanka had iyo jeer aan ku faani jirnay buu ahaa dhinac walba iskaashi weyn ayuu la lahaa ciidamada noocyadoodii kale. waxaan xasuustaa 1975 carbiskii u dambeeyey oo carbis wada jir ah ay wada sameeyaan ciidanka cirka dhulka badda iyo difaaca cirkaba oo aan qayb ka ahaa markaasi ninkii yaqaanoo garanaya eelcadda mariid ayaanu ku samaynay. dagaalkii 77kiina waa la yaqaan waan la xasuustaa saraakiisha in badan baa ka joogtay markaasi doorka ay ka ciyaareen ciidanka cirka. allah u naxariisto saraakiishii markaasi ka qayb gashay dagaalkaasi iyo kuwii ka horeeyba in badan baan maanta aan weynay oo aynan hor jooganaya naga hoos maray. ilaahaan u baryeynaa in qabrigooda waasac uga dhigo jannadiina uu ka waraabiyo. ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba waxaan u hambaliyeynayaa ciidamada cirka munaasabada 60 guurada ee laga joogo maalintii la aasaasay. taliyaha ciidamada cirka iyo ciidamada cirka xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan idin leeyahay hambaliyo sanad guurideeda kale ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo.
maanta waxaan marahaynaa ciidamadeena oo dib u soo dhismahayo oo dib u dhisatii bilaawatay oo dib u qalabayntii bilaawatay dib u habayntii bilaawatay anigoo ogsoon taariikhdii shalay soo marnay haddana maanta waxaan ku jirnaa ciidankeena inaan dhisano ay ugu horeeyaan ciidamada cirka adduunyada hadda aan joognana ciidamada cirka waxay ku jiraan kaalinta koowaad markii la fiiriyo difaaca qaranka difaaca dalka difaaca shacabkiisa anigoo ogsoon shalay waxaan soo marnay maanta shaqo fara badanaana nooga baahan yahay aniga xukuumad ahaan ciidankan in miisaaniyadiisa la helo ciidankan in tababar uu helo ciidankan inuu helo imkaaniyaadkii u baahnaa anigoo la kaashinayna dowladaha walaalaha nahay anagaa nanaga rabaa dowlad ahaan inaan ka shaqayno idinkana waxaa la idinka rabaa tababarkii aada qaadateen aqoontii aada leedihiin inaad sii laba jibaartaan xaruntan oo ciidamada cirka isxilqaan in lagu nadiifiyo lagu dhiso idinka naftiina intaad ogoodaan in la sameeyo waay waxaa aniga qabsanin cid kale noo qaban karta ma jirto aniga waa inaan la imaanaa aragti i karti inaan la imaanaa xarunteena aan hagaajisano nadaafada aan u diyaarino meeshaan meelihii lagu tababaran lahay aan diyaarsano wixii aan isxilqaan ku qaban karno inaan qabano wixii ka badan oo isxilqaan ah inaan u diyaar garowno miisaaniyad ahaan dhaqaale ahaan inaan u raadino in la helo dib u habeynta ciidamada qalabka sida ayay ka mid yihiin ciidamada cirka in ciidamo dheeri la helo la tababaro qalabkooda loo helo waa mabaadi'da good aan ka duulayno waay maanta marka shaqadaas weyn ayaa inoo taasha berito waxaan rajaynaynaa marka shaqadaas weyn aan qabanno shalayna aan ognahay meeshaan gaarnay inaan gaari doono ee shaki kama jiro waa inaan anigu la imaano juhdiga iyo dadaalka la imaano dowladnimada la imaano dadaal dheeri aan muujino berito marka insha allahu waan gaaraynaa taariikhdii haddana noo sheegay email kasii fogbay waan gaaraynaa insha allah